dadka Soomaaliyeed waxay muddo ka badan nus qarni ka hor jirtay aragti ay rabeen inay ku mudoobashada Soomaaliyeed oo ay dhistaan dawlad kaliya maadaama ummadda Soomaaliyeed ay gacanta ugu jirtay gumaystihii Ingiriiska, Talyaaniga iyo Faransiiska. Dareenka xilligaa jiray waxa wax ka weydiinay ardayda Soomaalida ah ee shaqada labaad mastereedka culuumta cilmiga siyaasadda dhaqaalaha ka diyaariya jaamacadaha dalka Turkiga. aragtidooda iyo riyadooda ay ka qabaan in la soo celin karo midnimadii shanta Soomaaliyeed ee waqtiga badan lagu taamayay in la sameeyo. Kani waa Cabdiraxmaan Ashkir waxa uu ka yimid gobolka Waqooyi Bari ee Gaarisa ee dalka Kenya. Wuxuu aaminsan yahay in suurtagal tahay in la soo celin karo midnimadii shanta Soomaaliyeed. Soomaalida Kenya ku nool waa Soomaali numberkeena waa badan yahay waxaan maleynayaa 2009 ugu dambeysay afti laga qaado censuskii ugu dambeeyay waxay noqdeen 3 milyan marka waa number aad u badan anigana halka hadaan ka soo jeedo fikirkayga personally waxaan ku dhihi lahaa waa macquul Soomaalida inay ku biirto ay ku soo noqoto walaalahood Soomaaliya ay mar labaad ay dib ugu biiraan ay hal wadan noqdaan laakiin su'aashu waa hawda waxay la tahay aniga in Soomaaliya marka hore ay ayada is dhisto saada aan ku sheegay qaabka aniga hadaan ku sheegay day isku dhisto oo ma taqaana basekeeda samaysato oo wadan stable oo isku filan oo magac adduunka kale ay noqoto in si ma taqaana process of peaceful oo dadkan hadda Soomaalida ee gobolka Waqooyi Bari degan iyo Nairobi ba isliika degan oo dad wax bartay oo dad ganacsi badan sameeya oo dad aqoon-yahana aftiba laga qaadaya marka Saddam Cabdiraxmaan Siraaj wuxuu ka soo jeedaa caasimadda dowladda Soomaalida ee Itoobiya ee Jigjiga wuxuu qabaa inaan xilligan habboonayn in shada Soomaalida ay midoobaan waqtiga iyo waaqaca jira awgii baahdo hadda ahaan markaan ka hadlayno wacyiga ee bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogto ay ku jirto markaan fiirina dhabahan u hadlayna runtii waxay u eg tahay arin iska adag markaas waxaan la aniga aan maya runtii ayaan anigu ahaan leeyahay yani markaan ka hadlayno dhabta waaqicayga iyo wacyiga hadda bulshada Soomaaliyeed ku jirto baan anigu leeyahay adduunka markaan fiirino tusaalahan soo qaadana bulshooyin badan oo sida Soomaalida oo kale ethnically isku yani aan oran karo bulshooyin isku qowmi ah dhaqan ahaan deegaan ahaan dhaqan ahaan badan oo wadaago badan baa jira balse laakiin waxyaabaha inta badan ay bulshooyinka xarkaha ugu badan ee dadkaas isugu xidhan waxa weeyaan waxa inta badan la yiraahdo integration ama yani iskaashi dhinacyadaas aan soo sheegay badan mid ku fororta yani midnimo ku fororta ayaan anigu leeyahay hadda ahaan Xasan Idris wuxuu ka yimid magaalada Djibouti ee Jamhuuriyadda Djibouti aragtidiisu waxay tahay in la sameeyo ciidan iyo baarlamaanka Soomaaliya wada leedahay laakiin dawlad kastaba ay ahaato dawlad ay caalamku aqoonsan yahay waxaan oran lahaa ila ra'yiga yani Soomaali nin walba meeshiisa ha ku ahaado Soomaali laakiin union Soomaaliya loo helo yani Djibouti Soomaaliya iyo Somaliland in loo yeelo ciidan mida oo union Somalian ku hawlgala iyo baarlamaan mida oo يعني مشاريع iyo qaraarada guud min xuduudda Kenya ilaa xuduudda Ethiopia khuseynaysa xuduudda Eritrea aan kala leeyahay halkan aan kala ay Soomaaliya Djibouti kala leedahay iyo xuduudda Soomaaliya ay Kenya la leedahay midaynaysa muwaadinka Soomaaliyeed waa inuu ilaa halka xorriyad ku dhaxmaro awoodda lana geliyay in xuduudaha ku kala ilaasana anagu Somaliland ay ku ilaaliso Puntland iyo Somaliland inta u dhaxaysa Djibouti ay ku ilaaliso Djibouti iyo Somaliland inta u dhaxaysa inta laga baxo oo ciidanka loo hawlgeliyo Soomaaliya inay ku nabadoodo Soomaaliya in yani Soomaali meeshay degantahay dhan geeska Afrika in looga helo ciidan Soomaaliyeed oo awood leh Xasan Mudane wuxuu ka soo jeedaa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho wuxuu fikradiisu tahay in midnimada Soomaaliya inay tahay suuragal haddii afti laga qaado shacbiga shanta Soomaaliyeed iyo rabitaanka beesha caalamka anigu waxaan qabaa inay suurtagal tahay waxa ayna ku xiran tahay rabitaanka midda koowaad beesha caalamka in rabitaan sax uu ka jira xaqooda ay ugu horeeyaan Ingiriiska iyo Mareykanka midda labaad waa rabitaanka dadka caadiga ah ee ku kala nool magaalooyinka shanta Soomaali aniga kama hadlaa siyaasiyiinta mowqifkooda iyo aragtidooda way caddahay haddii dadka caadiga ra'yigooda la fiiriyo haddii dhan Soomaali waa u baahannahay Soomaali waa rabnaa midnimadeeda in isku keeno anu waxaan leeyahay mid beesha caalamkan ay ayakana ogolaadaan ay rabitaankoodana ay ka go'antahay inay Soomaali midoodo marka labadaas rabitaan iswaafaqaan anu waxaan leeyahay midnimada Soomaali weyn waa suurtagal cid hor istaagi kartaan ma jirto waa Khadar Maxamed wuxuu ka yimid caasimadda Somaliland ee Hargeysa wuxuu qabaa in dawladdii iyo xornimadii Somaliland ay ku burburtay raadinta midnimada shanta Soomaaliyeed Somaliland ahaan
annaga wax badan baa midnimada nagaga maqan annaga horseedna in shanta Soomaaliyeed isku timaado abwaanadayadii walaalaha Hargeysa ugu horeeyeen Cabdilaahi Qarshe iyo Cali Suguule iyo ayaa bilaabay heesihii iyo gabayadii gobonbadoonka ahaa oo markasta hogaaminayay annaga waxa ugu weyn maanta nagaga maqan midnimada shanta Soomaaliyeed waa in dawladnimadii dhammayd ee Ingiriiska ka helnay aanu u sacrifice karanay ama aanu u bixinay si Soomaali u midoobi lahayd shanta Soomaaliyeed dawladda ay Soomaaliyeed leedahay ay isku iman lahaayeen ilaa iyo maanta dawladnimadeeda meel aanu ka doonaan laanahay waxaanu ka dhaxalnayna wuxuu ahaa niyad jab iyo in sidii la rabay aanay noogu soo dhaweyn dadkii koonfureed ee Talyaaniga ka xoroobay ee aanu la midoonay waa kow laba Soomaalidii kalena namay soo raacin oo waxaanu islaayn u horseeda saddexda kale iyaguna namay soo raacin waxaanu ka dhaxalnay in 1990kii aanu u nimaadno magaalooyinkeygii oo baaba'san dhaxalkii midnimadu anaga maanta wax barwaaqo ah oo aan sheegi karnaa haba yaraatee ma jirto waanaanu soo aragnay midnimadii laga yaabaa in walaalaha kale ee ka maqaneen midnimada Soomaaliyeed dhex wali gelin inay u muuqato in laga yaabo inay barwaaqo badan u muuqato laakiin anagu waanu soo aragnay waqti xaadirkana 1990kii markii Soomaaliland ay burco ku dhawaaqday in madaxbanaanida ama gobonimada Ingiriiska qaatay dib loo soo noqotay sidoo kale waxa halka lagu cancel gareeyay ama lagaga noqday midowgii 60kii dhex maray Soomaaliya iyo Soomaaliland Fahad Shaakir Xaaji Xasan Home Cable TV magaalada Istanbul ee dalka Turkiga